kadib kulan muhiim ah oo muqdisho ay ku yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdigii uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa lagu heshiiyay ilaa iyo 16 qodob oo muhiim u ah xoojinta iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. qodobada ay isku afgarteen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxaa ka mid ah kow hogaamiyayaasha labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo badan oo khuseeya labada dal gobolka iyo guud ahaan caalamka. intii uu kulankoodii u socday ayaa labada mas'uul waxay dib u soo cusboonaysiiyeen ballanqaadyadii ahaa xoojinta xiriirka ku dhisan walaaltinimo, dhaqanka, derisnimada iyo isdhexgelinta labada dal. labo waxaa lagu heshiiyey in dib loo soo cusboonaysiiyo xoojinta xiriirka ku dhisan wada shaqaynta guud xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo la dhowrayo madaxbannaanida labada dhinac. saddex labada mas'uul waxay soo dhaweeyeen dhismaha guddi ka shaqeeya iskaashiga labada dal oo horey loogu heshiiyey kaasi oo ah heer wasiiro wuxuuna ka shaqayn doonaa horumarinta cilaaqaadka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee labada dhinacba. afar sidoo kale hirgelinta xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado oo labada dowladood isdhaafsan doonaan si isdhaafsi uga samaynayaan magaalooyinka gobolada dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, fududeynta isdhexgalka bulshada sida socdaalka gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo dhaqanka. shan waxaa la isla gartay muhiimadda iskaashiga horumarinta dhaqaalaha iyadoo loo marayo maalgashi lagu samaysto labada dal iyadoo hadafka uu yahay sidii barwaaqo loo gaari lahaa labada dal iyo guud ahaan qaaradda Afrika ugu dambeyn. lix waxaa lagu heshiiyey in meesha laga saaro caqabadaha ku horgudban horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal si loo xaqiijiyo sugnaanta isdhexgalka dhinaca dhaqaalaha iyo in laga kala faa'iideysto awoodda wax soo saarka ee dadka, sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha iyo wadooyinka. toddoba qodobka toddobaad oo la isla soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ah dhiirigelinta maalgashiga gaar ahaan 4 dekedood waxay isku raaceen in si wada jir ah loo maalgashado ilaa iyo 4 dekedood oo muhiim ah oo ku yaala Soomaaliya. dhismaha wadooyinka isku xidha Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa la dhisi doonaa guddi farsamo oo ka shaqeeya hirgelinta qodobada lagu heshiiyey. sideed in laga faa'iideysto awoodda iyo fursadaha dhaqaale ee xagga suuqa iyadoo loo samaynayo maalgelin shirkadaha sida gaarka loo leeyahay taasi oo hadafkeedii uu yahay in fursado shaqo loo abuuro bulshooyinka labada dhinac. sagaal in loo baahan yahay xoojinta nabadda iyo xasilooni waarta oo ku noolaadaan shacabka labada dal iskana kaashado la dagaalanka argagixisada waxaana si wada jir ah loo cambaareeyay falka argagixisanimo nooc kasta oo ay ahaadaanba. toban dowladda federaalka Soomaaliya waxay uga mahad celisay dowladda Itoobiya ciidamadeeda oo qaybta ka ah AMISOM sida ay naftooda ugu horeen inay shacabka Soomaaliyeed ay ka difaacaan al-shabaab. 11 in mudnaan gaar la siiyo doorka AMISOM ee nabadda iyo dib u dhiska Soomaaliya waxaana la isla gartay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah looga hortago khatar kasta oo ku wajahna gudaha iyo dibadda waxayna si wada jir ah ugu baaqeen dowladaha kale saaxiibada Soomaaliya inay kaalintooda ka geystaan dib u dhiska iyo nabadda Soomaaliya. 12 waxayna si wada jir ah oo cad u qeexeen in dhanka uu xushmeeyo madaxbannaanida dalka kale iyo sharafta dhuleed iyo kala madaxbannaanida siyaasadeed iyadoo lagu baaqay dhammaan hogaamiyayaasha Soomaaliyeed in si dhab ah uga wada shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. 13 arrimaha caalamiga waxay ugu baaqeen qaramada midoobay inay la timaado nidaam waxtar badan oo isku dhafan oo leh dib u habeyn iyo xoojin iyadoo sidoo kale la isku raacay in loo doodo wadamada Afrika dhibaatooyinka haysta in xal waara loo helo. 14 ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku amaanay hoggaanka dowladda Soomaaliya sida ay uga dhabeeyeen ballanqaadyadii ahaa in dalka horumar lagu soo dabaalo waxaana uu xusay in dowladdu ay ku guuleysatay inay ka gudubto caqabado badan isla markaana ay u jihaysatay dhanka horumarka. 15
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya xilka cusub ee loo doortay dhawaan wuxuuna madaxweyne Farmaajo ku booriyay inuu fuliyay qorshihiisii isbedelada ah iyo hadafka dheer uuna noqdo mid waxtar u leh Itoobiya iyo guud ahaan gobolka 16 madaxweyne Farmaajo oo ku hadlayay magaca shacabka iyo dawladda Soomaaliya ayaa u mahadceliyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali kaasi oo dhankiisa madaxweynaha Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyay isaga iyo wafdigiisa ugu dambeyn wafdiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali ayaa kulanka kadib ugu laabtay dalkiisa Itoobiya waxaana sagootiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo xubno ka tirsan golayaasha dawladda intaasi waxa uu ahaa qodobadii ay ku heshiiyeen dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya.